guud ahaanba dunida ayaa waxaa ka jira xeerar kala duwan oo ay dowladuhu si goonigooniya u dejistaan iyo weliba qaar ay adduunyadu isla waafaqday oo lagu wada dhaqmo waxaana badi shuruucdaasi sida aynu ku naqaano loo adeegsadaa in balaayiinta qof ee dunida daafaheeda ku dhaqana lagu kala xakameeyo iyadoo qofkii jebiye amaba xadgudub sameeyana iyadoo loo cuskanayo xeerarkaasi uu mutaysto ganaaxyo kala duwan oo xilliyada qaar uu xabsi ka mid yahay bal haddaba dhegaysta weligaa ma maqasha digaagad amaba dooro waa qofba sida uu yaqaane xabsiga loo taxaabay kadib markii ay xadgudub samaysay arrintan ayaa ahayd mid ka mida sheekooyinka xiisaha lahaa ee warbaahinta dalkan maraykanku ay maalmihii lasoo dhaafay wax ka qoraysay islamarkaana indhaha bulshada soo jiidatay iyadoo dadweynuhuna qofba uu si u arkay markii ay ka falceliyeen bal haddaba dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inoo hayaa waa ku dhawaa cabdixakiin waa digaagadii caadiga ahayd oo aan naqaanay adduunka laga wada yaqaanay waa digaagadan weliba waxay caan ku tahay ama si weyn looga dhaqdaa gobolka Rhode Island ee dalkan Maraykanka waa digaagga caadiga ee dhaqaanay labada lugood lahaa ee la dhaqan jiray beedka dhali jiray way taa xadhigga loo geystay lana cuni jiray oo la cuni jiray qiimaha lahayd oo dad badan isla dhaca marka waa un digaagada waa hagaag ba haddaba cabdiqaadir markaa waa digaagada noocaas waa digaaggii caadiga ee dhaqaanay waa isla garanay maxay tahay sababta loo xidhay digaagadan waa la xabisay oo waa la xiray marka haddee dadka qaar waxay isweydiinayaan su-aashaasi ah sida loo xiray digaagadan maadaama ay tahay xaywaan oo bini aadan aysan ahayn laakiin digaagadan waxaa lagu dhex arkay mid ka mid a meelaha adduunyada maaragtay ugu ilaalada badan ee sida weyn loo ilaaliyo meel ay adag tahay in la galo waa xarunta ama wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka ee ku taala degmada Arlington ee gobolkan Virginia ee dalkan Maraykanka marka wasaaraddii gaashaandhigga ee kumanaan qof ay u shaqo tegayeen wax walba lagu ilaalinaya haddii ay noqoto dhinaca maaragtay technology-ga kumanaan askara ay joogaan waa hagaag marka cabdiqaadir xaggee gaadhay ma gudahay u gashay markaynu aragno faahfaahin ma laga bixiyey iyo sida lagu ogaaday digaagadan iyadoo socoto unbaa laga warhelay weliba qaybta aadka loo ilaaliyo deedna sidaas ayaa lagu soo qabtay waaya cabdiqaadir waxaynu naqaanay uun inta badan markaynu xabsi laga hadlayo ama xarig aadamaha wax meel lagu xidhaa loo sameeyo xabsiyaa loo sameeyo ama saldhigyo booliis ha la geeyo ama jeelal ha la geeyo xayawaan la xidhayo waa wax inagu cusub weliba gaar ahaan in digaagad la xidhaa oo dee saynu ka wada warqabno meel u diyaarsan ma jirto xaggee la geeyey sase loo xidhay halkee lagu hayay ma la sheegay digaagadda markii la qabtay ayaa waxaa loo sameeyey meel xero yar ah oo iyada lagu ilaaliyo oo aysan ka bixi karin raashin iyo waxay cuntana loogu diyaariyey iyo biyo halkaas ayaa lagu hayay dabcan baaritaanna waa lagu sameeyey waxaana aad la isu weydiiyey halka ay kasoo geli karto iyo sida ay kusoo gashay marka adig in muddo ayaa meeshaasi lagu hayay haddii meesha lagu hayay waynu garan karnaa dee dabcan meel u diyaarsan maaha ama usii diyaarsan iyadoo lagu hayn karayo waana dee xayawaanka yare aadka u tamarta daran le waa digaagadna waxaynu ka hadlaynaa maxay sheekadeedii ku dambeysay ma sidii un baa loo hayay ma waxay tahay baa la ogaaday baaritaankii kadib xaggee ku dambeysay cabdixakiin markii la baaray oo meesha in cabaara lagu hayay kadibna ay ka guteen waxyaabihii maaragtay shaqadooda ay ka qabsadeen waxaa lagu wareejiyey waaxda xanaanada xoolaha ama xayawaanka ee degmada Arlington iyagii ayaana la wareegay oo hadda waxa ay ka mid noqotay xayawaanka ay mas'uulka ka yihiin kulley iyaga unbaa meel geyn doona laakiin hadda iyaga ayaa gacanta ku haya hadal haynteedana waxay noqotay mid weyn digaagadii Pentagonka gashay ayaa la leeyahay oo sidaa ayaa loo hadal hayaa wakaaladaha wararka ayaana aad runtii usoo qaatay waa hagaag ugu dambeyn haddaynu eegno dee geesta kalena ma odhan karnaa cabdiqaadir xaruntan sida loo ilaalinayo markaynu eegno iskabadaaba aadame ama biniaadami qof biniaadami inuu soo gale xataa xayawaankii yarnaa ee aadka u yaryaraa digaagaduu ka mid ahaayeen baan ku nabadgelayn oon ku baxsan karin
Eh, aad iyo aad dabcan mararka qaar xitaa markii aad soo hormarto oo tusaale ahaan dadka meelihii oo dhan aa wada iskaana oo maaragtay waxaasaa ku wada dhacayo baabuurta dadka qaar xitaa uma dhowaan karaan ereyadaasoo dhan area aad runtii loo ilaaliyo marka digaaga unbaa galay kolley ma u malaynayo dadka inay saa ugu dhowaan karaan laakiin ilaa iyo hadda waxaa la isweydiinayaa digaagaasi meesha ay kasoo gashay iyo siday ugu suura gashay